sida aad la socotaan in muddo ah Soomaaliya waxay ku soo jirtay wax la yiraahdo doorasho dadban iyadoo qodobkan uu qoran yahay dastuurka kumeel gaarka waxaa la ansixiyay si kumeel gaar ah 2012 hadda waxaan maraynaa 2020 waxaan filayaa dad badan tusaale u soo qaateen ama waa dareemi karnaa nin mayor ah oo la magacaabay oo magaalo xukuma mayorka iyo mayor la soo doortay oo gobolka ama degmada markaasi soo dooratay tirada soo dooratay oo shacabka soo doortay 2 milyan ay yihiin midna qof uu magacaabay waxaan filayaa ninka la magacaabay kaliya wuxuu daacad u noqonaa ninkii magacaabay laakiin ninka degmadaasi ay dooratay ama gobernatorahaasi ay mayorka la doortay oo 2 milyan ay dooratay wuxuu ka shaqeynayaa sida adeega bulshada uu horumarin lahaa oo barito xisbigiisiyo asagaba markay isu soo sharxaan uu heli lahaa haddana muddo kale oo bulshadaasi u shaqeeyo waddankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosa ka dhacda waad dareemi kartaan hadda waqtiga ugu dambeeyay 2016 odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqeynaya guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad gasheen waana lidinka cafiyey doorasho dadban haddaan aadno waxaa la filan karay dhammaantiin waa dareemi kartaan qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan sharci doorasho ma lahayn waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyay madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aadayo ma jirto qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino haykal dawladeed dhisan baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhammaystirno wixii shuruuca oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha shaqo badan aan soo qabanay shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacanta aan ku hayno oo ah wax ka bedelidda sharciga axsaabta siyaasadeed hal qodob aan rabaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinkii iyo gobollada Soomaaliya lagama codayn karo runaan idin sheegaa maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yiraahdo shacabkeeda doorasho dhacaysa xiise weyn ay u qabaan doorasho dhacaysa in la yiraahdo tirada meel yaani dadka codaynaya waa la yaabi doonaa waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyay kan inaan ku socono